doonta waxay ahayd doon 2 dabaq ah waxaa ku soo raacnay 647 qof 2 qayb kor iyo qayb hoose bismillah aniga horta ma fiirin baa ka cabsanay baddaas iyo indhaha isku hay ilaa Lampedusa amaanine Lampedusa Italy kasoo bilaabnay meel lahay marka doonta mar dadku ay istaagayaan doontana balansiga hadduu ka dhumo ogtahay inaa qaran dadku ay istaagayaan oo iska qaylinayaan doonta mar meel u jilaysaa annagoo doontii shidaalkii naga go'ay oo jiha u soconna la oo yaaban oo qadimanay ani quraan iska qasbaxsada mar kulli badan waxaan maqli jiray intaas oo qof badana intii qof horta wax yar ka boosori badda intaana ka soo tagin intaana maanta soo baxray maalin ka hor bil maanta soo baxray maalmo ka horeey adoona gudoontay wax ku doontay xeebta Liibi doon kun qof saarnaayeen ugu yaraan 600 oo qof alimatay waa bad soo ceeris ano waxaas riskaas u jeedo oo meedkaas u jeeda waxa uu soo talagalay inaan soo tariibo hadda maalin noqonay maanta noqon lahaa oo dadkii aan meesha isku barno magaalada igu soo reeyay meedkoodii ay bad sabeynayaan xeebaha meesha xeebaha loo daawashatay maartay inay xeebaha ku daawashaan waxa u daawashatay meed sabeynaya wiilasha shalay ay diinay bad xagee loo maraa meeqa joogta oo soo qofkii marka saas ayadu ahaanina waxa dhahay xama dhimani ama noolaanay wax ka dhaxay male awalba nolol geeri u dhaxaysa Soomaaliya joogu lahayd markaan imaanay Lampedusa meel dhahayo Italy la keenay aan la qabtay faraana la qaaday meelan wala xareeyay meeshaas saas Italy ku imaad horta kadibna magaalooyin kale oo Italy ka tirsan la keenay laakiin nolosha Italy waxa iska taaba waxa filinay markaas Europe waa meesha ka bilowday moogtaa Europe ka bilowday wadankayga waxa ku haystay Italy hatta 3 meelood 2 meel hatta kama helin ka Soomaali marka joogo waa faraxsanaa iska baashaar jirbiyay laakiin Italy aniga waxa ugu daran Italy marka Italy go'aan gaar qoyso inay soo xulin Italy علشان Europe ta aan yidii aad u xunaato wadanka ku fiicnaa waxay taqaanaa waxa imaaday waxana la keenay meel kaamki markaas dhahay kaamka aan hadda shaqada ugu yar ay haysid maanta ay heewaysid hadda shaqeeyay maanta shaqada ay Italy ka helis wax waaye waa inaad dhulka iyo kaamki xaqda aniga waxa ka filayay Europe marka imaado wax barasho guri wax sidii lagu sheegi jiray moogta guriga qaadanaysa gaari cad qaadanaysa waxa baranaysa lacag helisa wixii la sheegay hatta wax la mid hatta ma arkiniyo marka imaado Italy nolosha Italy aad ugu adkaatay kadib nolosha Italy aad ugu adkaatay because waxa ka dadka aniga waxa ku fikiraa inaan dadka wax u qabto in aniga wax qabsado maxaa dadka wax u qabtaa noloshayda aniga waxay ilaafiisaba cuntadii aan lahaayay meesha jeefala inaan ka fikiraa noloshayda badaafiisaba waxa dhahay Yurubtan kale aad nolol ka wanaagsan wadanka waxa soo aaday Sweden marka hade wad Yurubna sharciga ka yeelaba double sharci la faraa leedahay meel kasta marka imaado wadanka waxa la faraa leedahay Italy ku qasban Italy aad marka waxa Italy dadana waxa ka fikiraa waxa un lahaay iyo meesha jeefala marka qofkii rabo inuu ka fikiro wax un lahaay wax jeefala ha ku soo dhawaado Yurub haba wadan iska wareegtid waalidka waxa ma qabi kartid nafta waxa ma qabi marka maxaa faa'iido hadda aniga intaas hadda aan nolosheedana nolol fiican oo maanta nolosheeda hore ku noolaan nolol ka wanaagsan ma haysto lacag ma haysto waxbarashadii soo raadsaday oo waxbarasho ma haysto waa hadda 6 sano ka badan jooga hadda waa iska wareegay maalin ba wadan iska waxa ka aaminsanaa Europe iyo waxyaabo ku arko wax iska mid ma aha waxa ka aaminsanaa Europe waxyaabo badan Europe hadda qofka markuu wadankiisa joogo wallahi ku soo wacayo Europe qofaan inta kula socdo wallahi Europe ka imaaday kaas lacag baabuur iska haysto guri iska haysto waxbarasho free wixii dhan aniga kuma haysta aniga wixii dhan kuma arkin ba ma ku arkin ba ana hadda wadankay wax buurno maanta ku haysto ma jirin laakiin waa aad nolosheeda aad ugu faraxsan stress ma qayb dhibaato kalma hadda waa ka wadankan fikir leh iyo nolol iyo wax kale maanta ugu jirta marka waxa dadka hadda ka bacdi soo tahriib doono dhalinyaradaas wixii yaqaanay wax saaxiibada wax kula talinaa inay wadankooda iska aaminaan oo iska jooga wadankooda meesha ku soo dhugeen hadda meesha aan